شوشو عبد الله إن أنت كليه شوشو عبد الله إن أنت كليه صومالي وعاصم باتا aabihii dhalihin labka eegitiba laga oofsado waanacayaduun anigoo qura way la ilmaysaa jaceylka waalidka waa gabadha ku suntoon wanaagga iyo xijaabka waxay gaartay halkii ugu saraysay ee qof Soomaali jooga uu ka gaaro TikTok-ga waana iskoor milyan followers ah waa ubax gabadha Soomaali oo dhan ka mudan in la sharfo Shushu Cabdalla ku soo dhawaada warbixinta gaarka ah ee Somali Social TV share gareeya follow dhaha boggeena subscribe saara channelkana wanuuya laymana arxamo iskoor ayay jibisay Shushu Cabdalla gabadhani aan dheeheedii bedelin iskuna qaawin kaamiradaha hortooda kalsoonidana ka gaartay heerkii ugu saraysay ayaa soo bandhigtay dhooltus cajiib ah waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Muqdisho barteeda gaarka ah ee TikTok-ga uu gaaray 1 milyan followers ah haddana waa 1 milyan followers ah cajiib وما قاونا طلت بيحيرتا alla sideed oo kala wanaagsanee hambalyo camban kuleenahaye hambalyo camban kuleenahaye walashinagu qaaliyaa tahay bal saaxiibayaal sheergareeya warbixintani Somali Social TV ee maanta Shushu Cabdalla oo ay u shidan tahay ayaan ku soo koobaynaa channelkeena soo subscribe gareeya oo follow dhaha page-keena si aynu ugu dhiirano warbixinada caynkan oo kale Shushu Cabdalla ayaa toddobaadkani xirtay 1 milyan oo followers ah waxay gaartay iskoor aanay wiligeeda gaarin gabar Soomaali ah oo TikTok isticmaasha waxay ku kasbatay akhlaaq suuban iyo asturnaan ay dadka dheer tahay waxaana loo muujiyay garab xaflado ayaa loo qabtay Canada ayaana la geynayaa waana loo kala kicinayaa Shushu Cabdalla balse intaan muuqaalka iyo warbixinta guda gelin sheergareeya saaxiibayaal muuqaalka laagna dhaha page-kana soo follow gareeya oo channelkeena YouTube-na subscribe dhaha waa tahay aan ku bilowno warbixinteena toddobaadkani ayay xirtay Shushu Cabdalla 1 milyan oo followers ah barteeda gaarka ah ee TikTok-ga waxay heshay garab istaag Shushu oo loo balan qaaday in Canada la geynayo hotel digeelna xaflad weyn loogu qabanayo haddii ay gaarto 1 milyan inta ka dhiman sanadkani cusub oo ay markaasi ka dhinneed maalmo uun ayaa muuqaalkani dadka Soomaaliyeed kula wadaagtay in ay garab istaag kaga baahan tahay salaamu alaykum saaxiibada ku xiran TikTok-yga waxa idin sheegaraa waxa tahay in liismay balanqaadyo aad u waaweyn laba balanqaad waliba zaid u siiween labada balanqaadna waxa tahay Visa Canada bayna loo maleynaya asxaabta laakiin waa iga dhab Visa Canada iyo waxa kaleeto xafladeeda in lagu dhigayo hotel Dikeel oo ku yaalo Elaboorka gudihiisa sideen ku gaari karaa marka balanqaadka sidee ku gaari karaa waxa kamid ah 65 kun ay ga dhiman TikTok-yga 1 milyanka waxa la dhahay 1 milyanka hadaa gashid sanadka cusub haweenka sanadka cusub hadaa gashid balanqaadkaas waa leedahay marka asxaabtu waxay idin rajeenayaa 1 milyan in la gaarsiiyo dhaqso sida balanqaadkaas seeto liigu oofiyo sanadka cusub hadaan dhaafo balanqaadkaas Visa Canada waa ever hotel Dikeel xafladeeda ma lagu dhigi doono marka insha Allah waxaan rajeenayaa dhamaantiinaba ina igu dhaqsiisiin milyanka 3 cisho bisa ka dhamana u maleynaya mac salaama intaasi kadib Shushu ayaa heshay gacan qabasho dadkii ayaa isgaarsiiyay Facebook-ga YouTube-ka iyo Instagram-ka ayuu ku faafay muuqaalkii waxayna yar iyo weyn dadkii oo dhani ku soo hoobteen barta TikTok-ga ee gabadhani iyadoona intaan sanadkii dhammaan bala gaarsiiyay
1,100,000 dalabkeedii waa la dhaafiyey shuushu waxaana iska soo daba dhacaye hambalyadaha hadiyadaha iyo dadka oo ugu hiilinaya in ay la qaybsadaan farxaddii ay gaarsiiyeen heerka ay la kulantay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo ka dalbaday in ay sawiro la gasho maadaama ay tahay caan dhalay Hotel Dikeel oo ka mid ah hoteelada ugu qaalisan Muqdisho ayay ka dhacday xafladeeda waxaana ka soo qayb galay fanaaniin jilayaal masraxiyadooda la jecel yahay iyo TikTok leydii ay isku jiilka ahaayeen waatana Shushu Cabdalla oo ka hadlaysa sida loogu kala kiciyay haddaba Shushu Cabdalla maxay ku gaartay heerkaani weyn maxaase u suurtageliyay maxayse kaga hormartay boqolaalka u maleeya in ay ka qurux badan yihiin ee TikTok iyagoo qaawan dabada ruxaya aan jawaab u raadino weydiintani bal marka hore igula nasta muuqaalkani quruxda badan iyo Shushu Cabdalla طلت بيحيدتا alla sideedoo kala wanaagsane hambalyo wacanban kuleenahaye hambalyo wacanban kuleenahaye walashinagu qaaliyaad Shushu waxay ku mutaysatay heerkaani in ay noqoto gabadha kaliya ee muujisay kalsooni in ay ku kalsoonaato midibkeeda sidaan ka dheehan karnaba midibkeedu waa madow oo ma aanay marsan khaskhas quran kalena ma isticmaalin walow ay midibkeeda madow kala kulanto caqabado haddana Shushu Cabdalla uma dhutin midaas oo wili kalsoonidii ayay isku qabtaa waxayna sheegtay mar ay ka sheekaysay caqabadaha ay wajahdo in lagu fuquuqo midibka madow laguna naco oo ay dadku ku takooraan intaasi ayaa ku soo koobaynaa warbixinteena Somali Social TV ee maanta oo aan ku soo bandhignay habjiliinka hamiga iyo hardaamooyinka ay wajahdo Shushu Cabdalla geenyadan madow ee guulaha ka gaartay aaladani lagu fasahaaday ee faasiqiintu ku badan yihiin page-keena soo follow gareeya channelkana subscribe soo saara siina share gareeya warbixinta aragtidiinana nagula wadaaga qaybta hoose ee commentiga tan iyo kulanti dambe nabaday